sida la ogsanyahay gobolka Boqol isbitaal kale oo geeka oo referral MLA isbitaalka Shileys oo lagu qooyo shanta degmo runtii eeda may buaha hadii la fiiriyo deegaanka xaaladooshey la fiiri iyo dadiilo faylaya dhanaga waxbarashada yala erakor kiishka bariiska geeka may garohaynaha $20 ya kiish bariis la gada kiishka burka may la gadayaha $22 ya rooga marka aqabad washana saha sicir barka shanaayhi jidka hirin bulshada mashaarleysiyaanana kayaalka magaalada ku turlaa ku gala waa surinyin iyo waardiyaaya aanada la baare tiifka la baare dambiila la baare dhalinyarada deegaanka may ku abada jareanaha dhinaca shaqaalaysiinta ya ku abada jareen waxa ku abadaan ma haytay maanaha lan deegaanka waxaan baradii oo deegaankii rooga shaqadiisu gobol kora jamayl ku sheena jaray ini oo barnaamij amboonin bay dhoom bahamar amba milooyin ku sheena ya dhii jartay taasina ka maamul ahaan warqadaha ku saarnay ini oo inta kolan deegaanka shaqo gobol kora oo baahani lan kala barnaamij ku sheegan doon ku sheena doon sameeyay xudur magaala madaxda gobolka Boqol walka dhowtuma ishan sano waliba waxa go'doonge ma jaran wal baabuur ee oo hagalow ma dil ku reebo wal ka sheeni dad iratiyo iyo waliba gaari dameere oo la hal dhoomadi inkastoo magaalada iyo go'doon la cimri tirsada hayta haddana dad shamis dhiibnay oo qolo kastaba waliba ay qaadatay qiiman gaar ah walibana tartan lanka jara in lan garawne gaashaanka lan daruuro go'doonka lanki xudurin roogna waliba isweydii kore salinka nooli magaalo go'doonge su'aal ma ku teegan in wal kasta oo bulshada baahanaytay oo ciriiri ka jiraan markii aad la sheekaysato dadka dhatiya rooga wala anka badan oo lakiin ku sheekayay waliba iyo ina go'doonka magaalada ka jarta oo curyaami guud ahaan nolol dadka magaalada rooga warbixintan gooniga ee hoobi ebehay waliba una ka fiiri doonne halka hata ee magaalada xudur una warbixinteena ka korsurima doonna meelo badan sida caafimaadka walbarashooda ganacsiga nabadgelida iyo waliba habsami indareerowka howlo maamulka haddii una ka bilowna caafimaadka kan waliba waxa isbitaalka guud ee magaalada xudur isbitaalkan waliba uu sahaayay howloonka muhiimsan ee dhiniga caafimaadka ee magaalada xudur waa kibaryoba waliba uu saqaabilay dad qaba bukaano shalgadiisan habanka badanaadana owlaadihan raab hana say ku shalkooyow deegaanada ka wareegsan magaalada xudur iyo haan rooga guda degmada xudur waliba ni isbitaalku sibiyay adeega caafimaad oo shalgadiisan suusa ka waramahaya agaasimaaga guud ee isbitaalka degmada xudur eedan nuuro maalamay isbitaalku way buu yani shaqadiisa fayla ka dareerta si shaqaale jeey dhaqaatiiradiis may buu yani faylan shaqeeyahay amiga 24 shaqeeyahay isbitaalka marka kulli dadyo badan oo degmooyinka iyo tuulooyinka ku qooya laga qaabalahay eediyada shaqadan socota marka ayaa moondambana kasto may arago hayne maadaama dowga roobab jiraan dhalmaanyo kati malaari badan iyo may la aragahay tifo iyo wayba ayaa moondambana kuleela jiray marka iyaal iyo dadweynaha ka jiraan laakiin iyaal badan mandi iyo shuban yani gooyahayaan marka kulli kuleelkan iyo biyo iyo waraabahan oo safaysanayn kulli hata kulli in isku maleeyaan sida la ogsanyahay gobolka Boqol isbitaal kale oo geeka oo referral MLA isbitaalka Shileys oo lagu qooyo shanta degmo iyo tuulooyin soo marka isbitaalka markasta buux dhaafsiin degmooyinka dhangan lagu qooyo marka dadkaas aan howl galahay iyo dadka habarka ay degmooyinka iyo tuulooyinka qooyo oo magaalada buux dhaafeen oo dadka magaalada deganay kala malaabamaayaan intaas dhan khidmayaha isbitaalka marka isbitaal referral ee health board kale way waa dadka gudbiyaan dadka dhan talad qaab kulliba aqabad isku jarta maadaama uu magaalo hirin uu roogna way buu yani luqyaaba yani wal intan ka baahnay isbuuc inta walka qabad oo hamara ku gadimas bay dhow yaalan anni la hadeersi waa yani saas dartii aqabad ay jarta oo dhibaato ah masan hayna dad isbitaalka baahanjeedi mis magaalada hanjeedi badata maana dhibaato kale kulama dhiyo korta dad oo may buu magaalada hanjeedi dhowr mar way wadata hata problemka la kulama iyo dhaaway inta la ningashan dhibaatadaas isku jarta may hata shaqadan eediyada dareerta maadaama way buu wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiir jiido horeey way buu yani howl isku saareen anti gobolka Boqol dadii way buu gurmadan gargaaran eediyada may buu arintaas oo la isku saaray waan safayla ka dareerta arinta insha Allah ganacsiga waliba si habsama leh ka dareere howlasu ganacsiyeedka magaalada xudur walibana soo guusan shaqeeyahay si hawli iyo ona jaran aqabado badan oo ka wareegsan ganacsiga magaalada si uu ku waramahaya Abdicasiis Shariif oo kamid ah ganacsatada magaalada xudur may ba faday inaan ku warama dhinaca ganacsiga kulli leey ku waramo karo haddii aan ku bilaawo aqabad yana haysata oo ganacsi walba may ba baaq man raayis oo kaabay jidka furnaantiisa kaabay jidka noo hirin
muddo dhan may dhahayso 4 sano ku dhawaad ya jidka noo hirini ya ka jarna go'doon taasoo sababtay in shabaab diida in oo may dhahayso insha jidka furo oo diida sababi saadaraadii markan aqabadaas iyo ninka wiil kuna haysata oo jidka hirnaanta iyo xaalka beledka may baak may dhahayso insha ma qiyaas kor kiishka bariiska geek may garohinaha $20 ya kiish bariis la gada kiish sokorta may la gada in shaqada $20 la gada kiishka burka may la gada $22 ya rooga hoob laakiin jid furnaada fana waa sheegi baak may dhahayso $7 $5 gadanaada fadiyo marka aqabad washana saha sicir barka sheenayhi jidka hirin ambanoyd iniga walbarashada guud ahaanba waliba sifaylan dareere walbarashada dugsiyada ka yaala magaalada Xudur si haddaba una walantaas ku badan ku ogaana halka walbarashada ee iskoole magaalada Xudur waliba una booqanay dugsiga maamageediya ee magaalada Xudur walibana meelasayni kala duwahay madaga iskoolka maamageediya ee magaalada Xudur Luul Maxamed Nuur runtii eeda may buaha hadii la fiiriyo deegaanka xaaladooshay la fiiri iyo didiilo faylaya dhanaga waxbarashada yala erakor dareema korta magaalada isku hirhirmu saas etaana dadshadad oo may buaha hami in la iniyo walbaradan marka eeda may buaha hadii la fiiriyo qaabka magaalada in yaala runtii dadka markii banaanka roogan magaalada mayba isleeyina dad oo baabaasan oo dhanaga waxbarashada dhana kasta kulliyada ama roogan ya isleeyin laakiin saas inta dadka degan markasta mayba ogeena in qof waliin barna runtii langeek la ka xisaabtamo koran hayn nafsadiisna walan iska taraana waalidkay walanka taraana wal usugeek in la hayn inaad qofkan geek wal usumay la raay nolol maalmeed aad siifadii waliba ku wanaagsana inaad wal bart marka taas iyada xaqiiqdii ogeen ya magaaladii oo sida isku ya hatana mayba la era kore iyo dadiilo fayl oo waxbarashadii dhanaga kiisha ya ku dareert taas walikin ka daliil imtixaanadii oo mayl eraay oo shahaadiga hay sanad ku dambe mayba hadii fiirid ardayda horahan kor rahayaan usoo dhibaato far badan kaleena wadanka isku ku jar saas etaan hatana mayn dhabar adeega hayana sidii ubadka oo mayl eraay bariyad bedel fadi lahaan saara fadiya hatana mayba ya anfadaan dadka marka run ahaantii kuleediba dareemo korto mayl era kore waxbarashada dhanaga kiisha dadka hata sidii horma eeda mayba aan ka baraarugsan la era kor fiirinoyd iniga nabadgelyada magaaladan idad shaba walayo ka faanayaan waliba kuwiina nabadgelyada guda magaalada ma jiraan wal problem ma dilu ku dooho nabadgelyada amaba amniga guda magaalada madiyada roogda masuul haaday ama lang miisan shay ku hoosayoba ma jara lang muul ku qaba may kullu kulamaas magaalada madilu ku dooho nabadgelyada dhammaan iritolah ku galow magaalada waliba roogada dhalinyaro oo iska jar ciidan iyo waliba shacab ahaanasay oo isku kaaladi sidii unsugu lahaayeen nabadgelyada magaalada Xudur adaba sakakoyti nabadgelyada heershi anta deeri waliba su'aalasan hordhikay gudoomiyaha xafiiska amniga ee degmada Xudur Mukhtaar Diiriye Xasan taas wali sheenay horta alxamdulillah allahi subhanahu wa ta'ala na abuuriyaan kama hadiyaan tan lamaad askaashi bulshada iyo maamulka iyo ciidamada yaa ka koytay waayo amniga shileediis ciidan bas ugu korshadeys ciidanka difaac walay bulshada mashaar leeysiyaanana kaaliyalka magaalada Xudur la ku gala waa surinyin iyo waardiyaaya aanada la baare tiifka la baare dambiila la baare loorka la baare wal magaalada hagalaw wal baare wali ku bahawn wal baare baaritaankaas wali isku laha bulshada reer Xudur isku leh difaacana way waa isku leh ciidamada galabka sida isku leh hadii ulma ama ciidan iyo urur dhalinyaro iyo urur haween iyo maamul iskaaladeen nabadgelyada ka koortay marka taas waa wal ilaahay lan ka bahadiyo mukudina dhibaato magaalada gudaashe lambastoolka ka dili ma jar lan habadlaka ka dhawi ma jarta lan kasta sagaal sahmiinada lugaaya gurujeyseeda taasna wal gobolada kale in la gabaan ma ilaahay an ka mahadiyaan askaashiga bulshada reer Xudur aska taladeen ya ka dhidi taas ambanoyd iniga maamulka iyo waliba meelolonku arimiyow magaalada 7 bilood ku hor magaaladan waliba landoorday maamul golo deegaan oo ku kooban 27 xubnood muddadaas iyo hadii dhatiyo
waliba si habsamo leh ka dareeray howlo maamulka iyo maaraynta magaalada Xudur walibana la ku gudbay xaalada cakirinay walibana la gobaday howlo bulshadii oo riyaaqan suuska doodahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka degmada Xudur mudane Cali Xuseen Xasan hadoo ay radio arlaadi markan wal ku bilaabo dhinaca maanaha maamulka howlashay horta maamulku aad jara muddo 7 bilood ya jara ee deegaanka ka shaqeeya maamulka cusub saas iyo taatana deegaanshii maanaha maamul oo bulshadii aan khidmaya aan adeegaw dhinac kasta maanaha dhinaca waxbarashadii haatoy dhinaca oo adeegada arrimaha bulshadii oo bulshadii dhaxdeeda dhinac kasta maanaha maamulka tasifay la shaqeeyahay howlo socda waxyaabo aan hadda dejinay maanaha ka guuleysnaa may ku mid ah dhinaca amniga gudaha magaalada iyo dhanka maanaha ini oo la go'aanday maalidii iyo la diyaariyo maanaha koonto la sameeyo oo dawladii hoose in la aruurin cashuur aruurintii iyo soo binay oo hata bilow fayl maanaha nin marahaya howlo badan ka wadna deegaanka waxyaabo badan maanaha isku bedel doon hadii la yar insha Allah tan guud ahaan deegaanka madawalka galowna maanaha deegaanka hata problem kala ku teegan maadaama dareemo korta wadan oo maanaha dhowr 15 sano dhan hata go'aas ku jari saasata laakiin bulshadii hata laakiin kuma qan maanaha wal dib yaalo kale laakiin laakiin dhahrooga markaasay may dareema in bulshadaasi bulshahooga isku normal ah oo dadka leen la mid ah bulshada maanaha walaaskiyo hay saasata maanaha dhibaato weyn ka hayto oo alxamdulillah سنة هورا سنة كتر عفانة سؤال كلمة ولا سمعنا هاي لنا بيا لكن الحمد لله حتى سنة يعني نقول حتى علاقة عني ونورا عن بيفعلك جران حتى نرى الله نصفعلك صوت ديان ده شيء كان معمول حان كل ولا خدمة دي بلشري معمول كل هالدور دي بحنا بلشة الدور ده يعني ونبى هذا يكون من مرولب ينصرنا taasna insha Allah howlo jeedar tartalinka ka hayn hadii la insha Allah qodobada jeeyir may ku midaha deegaanka markii hore dhalinyarada deegaanka may ku abada jareanaha dhinaca shaqaalaysiinta iyo ku abada jareen waxa ku abada ma haytay maanaha lan deegaanka waxaan baradii oo deegaankii rooga shaqadiisu gobol kore yamayl ku sheena jaray ini oo barnaamij aan boonayn bay dhoom bahamar amba milooyin ku sheena ya dhii jartay taasina ka maamul ahaan warqadaha ku saarnay ini oo intiqaalan deegaanka shaqo gobol kore aan baahani laan kala banaan ku sheegan doona sameeyay macad wasaaradda u saytiya la wadaagni barnaamijyada si filanin ka socdaana hatta maanaha sidii la faday howli oo socota may fadaana ini oo insha Allah wadanka deegaankan horumarshi ka dadaalna farstaagti dhismooyin shahado horumarka dhinaca dhaqaalaha dhinaca oo waxbarashada dhinaca caafimaadka ini maana wal ku bedelno unun wala ka kordhin ya fadaan hadii la yar insha Allah haskada duuba ujeedka warbixintan iyo waliba uu sahay inuuna haka bandhigno xogta halka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool madilaha ku taba goodoonka magaalada ka jirta in dadse iyo deegaan shabiyo in haano nabad nololiyoon ee to dhaxdhaxaad oo aan jarna wal dhibaato ee dhinac kastaba madil fiiri iyadoo intaas jirta haddana bulshadu waliba iyo hangal taagahayana in biladkan jiditeedis furamano magaaladan yalla tartanta magaalooyinka kale ee dalka taasna waliba lunku fidhiye maamulku samadan ulhay Abdiasiis Xasan Maxamed Laftigren eedan hasingeedan warteelka Arlaadi beledka Xudur shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha